ku soo bir kanaalka sahanka dunida oo subscribe saar haddii aad ku cusub tahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Allah ayaan waxaan ka baryaynaa in uu naga aqbalo soonkeena sidoo kalena uu na gaarsiiyo ramadaankan kan xigo. Xaqiiqdii ilaa 1950 aragtida sheegaysa in dayax gacmeedyo aan la garanaynin iyo waxyaabo duulaya ay bilaabmeen waxayna markii ugu horeysay ay ka soo muuqatay dunida reer galbeedka gaar ahaan qaaradda Ameerika. Meeshii ugu horeysay ee muranka madax banaanida hawada keentay waa Ruushka iyo Mareykanka. Inta u dhaxaysay aragtida sayniska iyo diinta sidoo kale inta u dhaxaysa fikradda shirqoolada kala duwan. Run ahaantii fikradaha diimeed badankoodu waxay u muuqdaan inaysan wax diidmo ah ka qabin jiritaanka makhluuqaadka aan aadanaha ahayn iyo jinniga. Mana garanayno maxaa yeelay Allah qaadirka ah ayaa sheegay in dhulka iyo waxa samada dhex yaalo isaga in uu abuuray aan inaguna garanaynin. Wayakhlaqu ma la ya'lamuun. Dhabahantii waxay ahayd inaanu kala saarno jiritaanka noolaha aynaan aqoonin iyo noolaha kale ee maangalka ah. Jiraan wax aragti ah oo aan ku diidno jiritaankooda. Sidaas daraaddeed ha la yaabin in aad aragto iwaan leh madaxa shinida oo laga helay meeraha Venus tusaale ahaan waana sababta uu Alle u leeyahay ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. حيوانka jiritaankoodu waa su'aal halkaana waa halka lagu muransan yahay. Haddii aqli ahaan aqligoodu keeno oo kala ahaan lahaa sidoo kale haddii technology sideena oo kala ah ay yeelan lahaayeen fudud ayaa lagu ogaan lahaa mana lagu murmi lahayn sida jinniga iyo dadka oo kale. Waxaa la hayaa 3 fikradood oo asaasi ah oo kala duwan. Fikradda koowaad waa in ay makhluuqaadkan jinka ah ee dadka ka mashquuliyaan cibaadada ayna tusiyaan waxyaabo aan loo baahnayn. Laakiin dhibaatada fikraddan ayaa ah in indheynta iyo baaritaanka ay ka dhacday dhulalka reer galbeedka oo aan diinta haysan. Aragtida labaad waxay leedahay in waxyaabahani ay yihiin bini'aadin sideena oo kala ah oo ku nool dhulka hoostiisa kuwaasi oo u haajiray tan iyo markii ay ogaadeen in dhulku bohol yahay ayna isku qarin karaan. Intii lagu guda jiray dagaalkii adduunka halkaasoo Jarmalka qaarkoodu ay shaaciyeen aragtidan qarsoon waana ay ku fogaadeen waxay sameysteen saldhig dheer kuna dhex yaalo dhulka hoostiisa. Fikradda saddexaad waa in ay tani tahay waxba aysan ahayn laakiin ay yihiin shirqoolo dawladaha joogo iyo tijaabooyin qarsoodi ah loogu talagalay in dadka lagu kala firdhiyo laguna khiyaameeyo. Dabcan waxaa jiro fikrado kale oo sheegaya in ay yihiin makhluuqaad anaga oo kale ah laakiin aragtidani waa la diiday maxaa yeelay waa arin anaga naga qarsoon.